الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى wuxuu leeyahay waxaa idinku waajib yeelnay soom al-imsaak in la afhaysado oo maaragtay oo soomka waa afhaysasho imsaak soom ayaa idinku waajib yeelnay wax sidii aan ugu waajib yeelnay dadkii idinka horeeyay oo maaragtay idinka horeysan ugu waajib yeelnay marka soomku waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo soomku waxyaabaha burin la iska ilaaliyo fadliga uu leeyahay soomka waxaa ka mid ah bisha barakaysan oo Ramadaan ilaahay wuxuu u suubiyay qayb ayuu ka dhigay bisha barakaysan tobanka ugu horeeyo ilaahay wuxuu ku tilmaamay raxmadiisa inay soo degayso ilaahay raxmadiisana maahan wax la iska heli karaa waa Allah subhanahu wa ta'ala raxmadiisa qofkay asiibtana ilaahay naar ma gelinayo ninkaas maxaa yeelay raxmada u hormartayba qaybta dhexe waa maaragtay maghfiro oo Allah subhanahu wa ta'ala dambiyadii 11 bil soo gashay oo dhan oo ilaahay ka cafinaya hadii aad ka tooba keento oo ilaahay maaragtay ka cafinaya tobanka dambe oo bisha Ramadaan Allah subhanahu wa ta'ala naarta ayuu dadka ka xoreynaya maalmaha ka mid ah soobana salawaatullaahi wasalaamu calayhi asigoo minbarkiisii koraya ayaa wuxuu dhahay marka koowaad aamiin wathani marka labaad wuxuu dhahay aamiin marka saddexaad wuxuu dhahay aamiin markuu khudbada soo dhameeyay asxaabta rasuulka sallallahu alayhi wasallam ridwaanullaahi calayhim waxay weydiiyeen rasuulka ilaahay markaad meeshan ku rishay waxa dhahday aamiin marka labaad waxa dhahday aamiin marka saddexaad waxa dhahday aamiin rasuulka ilaahay maxaa dhacay markaas rasuulku wuxuu dhahay qofkii ilaahay gaarsiiya bisha Ramadaan soo gaara oo bisha Ramadaan asigoo soo gaaray naarta aan laga xureynin naar waaba galay ninkaas oo u balansan tahay Allah ku fogeeyo oo u dhahay malku Jibriil markaas waxaan dhahay aamiin marka bisha waxa ku jiro fadliga oo naarta iska xureynayo cayaar maahan waa malag ayaa dhahay qofka bishaan soo gaaray hadii aan maaragtay dambigiisa aan la dhaafin oo raxmad helin oo cidq min naar aan helin rasuulka ilaahay ninkaasi naar waaba galay Allah ku fogeeyo oo dhahay malagii macsuumka ahaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam asina wuxuu dhahay aamiin ducadaasi biswa soo naqash malahan wala ajiiwa marka bisha Ramadaan qofkii ilaahay soo gaarsiiya waxa loo baahan yahay inuu is ilaaliyo maxaa yeelay bishani waxa ku jirta shayaadiinto dhamaan waa la xirxirayaa bishan hadii la soo gaar bisha Ramadaan shayaadiinta akaabirada waaweyn oo dadka maaragtay marahawaalinayo oo maaragtay dadka dhibaayo Allah subhanahu wa ta'ala uu ka xiraya jannada albaabaheedana waa la furaya naarta albaabaheedana waa la xiraya marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo suubiyay wax yar maahan bisha Ramadaan waxa arkaysa qof ku dhahay bisha Ramadaan gaasa uu kacay wargaaska uu kacay soo u yaala adigoo caafimaad qaba oo ordi kara soco kara adig markaa tiraado aan maanta waa maaragtay maanta waxa way xaaladeed ma qiyaasno maanta ma soomi karaa waxaasi waxa ka soo gaarayo ayaa ka weyn raxmadda ay ku sheegin bishaan waa bishii Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu oo quraankiisa soo dejiyay shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran waa bishii quraanka la soo dejiyay bishaan waxa loo baahan yahay qofka quraanka yaqaano inuu bishii dejiyo rasuulka sallallahu alayhi wasallam soomka ugu dambeeyay wuxuu dejiyay low mar uu dejiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa loo baahan yahay cibaadaadka
in la badiyo bishaan fadliga ay leedahay waxaa ka mid ah ninka mu'minka ah arsaaqdiisa ilaahay wuu badinayaa bishaan laakiin haddaadanna soonin oo bisha ramadaan oo barakaysan ilaahay kuu soo gaarsiiyey adigoo caafimaad qaba oo haddana aadan soomin taasi waa nasiib daro oo nafsadaada ku sugan waxaana ku haleelaya ood helaysaa hawaarkii malku jibriil hawaartamay oo rasuulkana aamiin dhahay waxaa kaleete oo saddexdii aan sheegayna haddaan sii dhammaystirno saddexda qodob oo rasuulka aamiin au dhahay haddana aamiin au dhahay waxaa ka mid ah qof hooyadiisa iyo aabbihiisoo nool soo gaaray oona ku caasiyey kaasi naartu waabagalaya allah ku fogeeyo malku jibriil saas u dhahay rasuulka sal allahu alayhi wasalamna wuxuu dhahay aamiin taasna waa asiibaysaa marka qofkii aan soonin qof rabaa ma jirto bini aadamkana maku rabaan ilaahayna waa u xukuman tahayba waxaa ka tagtay shanta tiir islaam mid ka mid ah ayaad iska dhaaftay wasoomu ramadaan waa tiirarka islaamka allah subxaanahu watacaala tiir ka dhigay mid ka mid ah waa haddaa ka tagtana waxaa laga yaabaaba haddii camdan aa u diido oo soom ma jiro aad dhahdeen ood ku gaalowdo ama aad ku marmarsiyooto xanuun adi aan ku haynin aad ku marmarsiyooto waxaa kaaga imaanayo oo dhibaatada ayaa ka weyn marka bishaani waxaan dadka ku boorinaynaa aanu sheegaynaa maanta waa bishii ramadaana noo dhalatay oo maaragtay noo curaday inaan farxad ku soo dhaweeyno oo maaragtay aan farxno maxaa jira qofka sooman laba waqti ay u farxayaan soo rasuulka sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu dhahay qofka sooman wuxuu farxayaa markii afurka la gaaro oo biyaha qabooban aad cabto oo xibnahaaga qaboobaan oo ducada aad aqriso waad farxaysaa ducadana markaasi waa ilaahay uu aqbalayaa qofka sooman oo bishimihiisa engegeen oo baarkiisa isku dhegay liajli illaahi subxaanahu watacaala u soomay marka soomka haddii aad farxdo xilligaas wathani madda labaad waxaad farxaysaa markii allah subxaanahu watacaala aad aakhirada tagto maxsharka qiyaamaha kuleelka rafaadka aad aragto oo allah subxaanahu watacaala ajarka soomka uu ku siiyana maalintaasna waad farxaysaa ajar walba subxaana allah taadhado aad tasbiixsato alxamdu lilaah aad taxmiidsato allahu akbar aad takbiirsato ajarkeedu waa nolol sheegay subxaana allah maaragta 10 toban ajrad ka helaysaa man jaa bilxasanati falahu 10 amhaaliha oo ilaahay yidhahay laakiin soomka waa shay weyn ilaahay asiga ayaa isku aldiifiyey wuxuu dhahay as-sawmu lii soomka aniga iskale wa ana ajizi bih soomka maaragtay aniga ayaa maaragtay ajirkiisa iyo wixiisa aniga haya oo dhahay marka hadaad soomto oo ilaahay maaragtay soomkaaga aad ilaaliso indhahaaga aad ilaaliso adigoo sooman oo kaleete in banaanaha aad fadhiisato oo dumarka ajnabiga aad fiiriso oo xabadan maanta waa wax kala waaye iyo maanta wallahi wax kala waaye xaaladda iyo inaad ku dhamayso waqtigaaga maahan waqtiga qasiir waaye waqtiga waa gaaban yahay marka waxa waaye bisha ramadaan in laga faa'iideysto oo Allah subhanahu wa ta'ala cibaadada la badiyo oo tobanka koowaad raxmad inaad helayso qalbiga aad ku qabato qof muslim mu'min ayaa tahay oo qalbiga aad ku qabato raxmadaas in aad helaysid aad soontid quraanka akhriso wathani maghfirada ina hesho tan saddexaadna cidq min an-naar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh